وأما بنعمة ربك فحدث markii nabigeena aayada ay ku soo degtay ayuu nabigu saxaabadiisa ku yiri ana awwalu naas khurujan idha bu'ithu halka qiyaamaha khalqigu dhulka ay ka soo bixi doonaan ka ugu horeeya dhulka ka soo baxay buu aniga khatibuhum idha ansitu maalinta bini aadamka la aamusin doono ka u hadlaya buu aniga shaaficuhum idha hubisu marka dadka la joojiyo cadceed halka ay naga gubaysa madaxooga sida loo dul dhigo ee 40,000 sanadood banka qiyaamaha la joojiyo ee dhididka qofka ka baxay 70 xusul dhulka intuu galo dhididkiisu soo bixi doono ka maalinta dadka u shafaacad qaadaya ee u wargeynaya buu nabigu waa aniga mubashiruhum idha aisu maalinta dadku ay quustaan ka u bishaareynaya buu nabigu waa aniga liwaa'u alhamdi biyadi yawm alqiyaama calanka mahadda maalinta gacanteedu ku jira calanka mahadda aadam calayhi salaam oo abul bashara ibraahim alkhaliil calayhi salaam oo nabi ibraahim aad garanaysaan abul anbiya labadoodaaba ka soo qaad buu nabigu yidhi maalinka qiyaamaha calankayga hoos joogsanaya buu calankaygaas walaalayaal nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam han garana qadarkiisa oo awlaadeenna han barno maxabada nabigeena ciyaalkeena han barno oo inakuna maxabada nabigeena han baranno oo salligiisa han badino oo sunnihiisa han qaadano waad maqlaysaa maanta zamankan dad badan oo muslimiina in haddii laga cadhaysiiyo qaar diintay caayaya qaar malaa'igtay caayaya qaar ilaahay abuuray bay afka ku taagayaan qaar nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay darajadiisa iyo maaragtaanay ceeb u lahayn bay ku sheegayaan